warkalamaanay waan idin salaamay niman yaabin baa hadda kor wuxuu yiri waan yaabay bas yaabka maanta aniga arkayo nin baa waxa la weydiiyay ma guursatay oo xaasle ma tahay kolkaas baa wuxuu yiri haa xaaskayga waatan taleefankii buu tusay kolkaas buu si Allah wuxuu yiri waqti baan la qaataa abay maalin gacantan ku hayaa waan la jiiftaayo waan la soo toosaa laakiin waxaan rabbi ka bariyaa buu yiri inuu nagu irsaaqo bitari saalixa war adigu adeer ma yaabine أنا يا أبي مدحونا هيك مصبح عبدي وحق بعض السفر كي سويلن مركا تولدي سويلن لا ويا أبطو واحد كذي وحبك بأنا لقيت السفر كان مصبح عبدي والمصبح سفر ورئيس يوروب كتجي لها مين اللي جباجي ورما ما بسافر قررنا نشاركنا هاي لا هاي أي اللي قحب شيء وريدك واحد شيء سوار ما هني مدحونا فرماجة جوديو مقعابي وحنا الله حل صاري إسرائيل كده عندك مدح مروينه يتليه اللي جود الدولات كبلد وينه جودي جو تليال عيدا وبدن جودومين لو ديك بشر قابه وربحنا أيه صارين دربه أرنتي حمر وينه وربحنا كسابسن أيانا محكمة عيدا ما قلب كسيد وجود بيان وعينا شاقين إن بلدنا عادي الدولان وأي صوب بارد الدولان ده عادي وكل أنت تريها ورنمي أبشروا رصاص به دي جودي لندلا باو نبدها نندوات النبت ورصادي ولا تري ما تيو نبدا الناس لنوجا لهي ورما واحد كنت رسالو حلافل إيه دجال إيه بلا إيه بس بودا هسالينتي ودني جانا لها يجي كودلي وريا نبدا الناس لنوجا لي نبدا الناس لنوجا لي نولا لي نافوار لي ورمدا يساقو هسه ودني لك على ونكسنتهاي لكن أبيت كأنت النولا نبدا الناس لجنوجا ما مغل ورماشة دتك اللي قد لي وادولات كدو سمرين وعلى الله شاقنا هاي دتك سوجيدو دقانا كفر قلبي وحصل الله شاقين لا دلي si kama oo ku salaysan aan qabin war ra'iisul wasaarihi galmudug doctor sheekh mashakir waa uu hadlay waxaana uu yiri madaxda galmudug ma jira khilaaf ka dhex taagan wuxuu kale ka hadlay arintii dadka koonfur galbeed ka soo jeeda waxaana uu yiri galmudug waa koonfur galbeed waa galmudug Soomaaliyana Soomaali baale no war Soomaaliland baalader war wal mooshidi ra'iisul wasaaraha galmudug doctor shakir maahi hatta ka hore lama qofood isgaleen ari war ma la kala eliyo ma la kala eliyo yalla eriyari marka salankii iska diri ma eray isku dirkooda dibkan ku soo maray ma ogid ma ahan kala eli ma dhihi lahayn yari tiidiya kala hadii galmudug ni koonfur galbeedna galmudug ata hatta gobolkaas miid loobanaha ino faranjiteer li giliyow ino sheegshaarki meel saaraw hatta uslanka fidhiye buda adiga dhig jareemada isaaqow shaqfir ayaan ku leeyahay wax meed frijer la gelinayo ibalaayada sheegayso kama jirto dalka dadkuna walaalo warniyo balaayada la sheegaysaan halkay ka taagan tahay waa tukaraq warmid korneel falaalug la yiraahdo ayaa iska soo hangaaray markaasoo ciidamada Soomaaliland oo hangagaarkiisii uu la yimid daayaguna jawaabtii si wanaagsan u siiyeen war madaxweyne ku xigeenka Puntland meesha uu tagay ma aan tukaraqay waa deegaanka afurur oo ay dhawaan shabaab ka baxeen war hadaad ogeeyay madaxweynuhu inuu biyaha dhex jiiray hadda xabadaha ayuu dhex jiiraya war madaxweyne farmaajo halkuu taga ma ahayn afur ee waxa ay sababi caanoole warniyo meesha maanta madaxweyne farmaajo ka hadlay ma ahayn sababi caanoole ee madaxtooyada Soomaaliya ahayd halka qaas buu sameeyay ma dhiirigelin buu sameeyay oo waxa uu abaalmarinayay dhalinyaro orodyahanna waxaana uu yiraahday waa waxaan ku faani doon war dhalinyarada la abaalmariyay sheegaas isaag mad karow ku jiray lan ana roorka ogahay yeeshaasi sheeray madus roor bilaaw war Mareykanka wuxuu yiri waxaan kordhinaynaa duqeymada shabaab aan ku hayno oo adeer daashna miiska daayay war Mareykanka ma meel udurka Ebola leeyahay ka dilaayay wahe dalka Burundi roobka Muqdisho ka daayay beledweyne ma gaaray war beledweyne roobka ma diine shalay waxa la yiri gudoomiyihii hore Yuusuf Dabageed waa la soo xiriyaa haddana been waa yiraahdeen xiraalintu war adeer afkood iyo dhagahood meel ismaqlaynba war maaniga dilada afkaadi dhagaha isma maqlaan war wax ma ogidine gantaale xuutiyiintu ku rideen dalka Sacuudiga 26 qof ayaa ku dhaawacantay war xariifow xuutiyiinta maxay isku tihiin abo ha caarif in noqod nagu dhaxnool waaye war ma joogniyo casiirka wada cabaanay war nimayo
warnimayow fadhiga maanta rag badan baa ka maqane waana shakiyey ma Nairobi bay jiraan warnimiyo horta wala ma gongeeleydiyo doctorkii caafimaadka oo shalay kooy ya faleeba galdanka duriya ka aali war waxa idin ka maqan waa waran lay intaasaan ku soo koobayay maxaa kala rabtaan war intaasaan ku soo koobaya ninkii lahaa jacayl baa ku dhacay markaas buu gabadhu u tagay kadibna wuxuu yiri intaasaan ku soo koobayay walaalay raac war maye libax bay dhaga hayaan war libaxada ma naqaan adiga inaga hor wareeg war ma adiga dhihi karo wariya خير الله يدوم وافجيه